waxaa la yiri geeridi galbeed laga sheegay gundahaaga laga dayaa geeda balaayada la yiraahdo markay adiga ka maqan tahay waxay ku maqan tahay walaalka maqal ma jira warmay maqashaan ما مقليسان واي مقشان مي مقشان مقل ما جرا ها سو قرنو ها اي سو قرا مقليسان واي codkayga dad maqlaysaan ha ii soo qora Firdawsa thank you thank you so much waxaan idin sheegaa waxa la yiri geeridi galbeed laga sheego gundahaaga laga dayaa balaayo inta adiga ka maqantaa horta hore waxay ku maqantaa cid kale wixii balaayo oo dhan ilaahay naga hayo qadarta ku dhacday raacadi dollar waxaan leeyahay ilaahay dartiis ugu sabra wax walba oo dhacay sabra la idin ka rabaa ilaahay qalbiga idin qaboojiyo laakiin dulmiga idin ku sameeyay ma aha mid aan ka aamusi karno waxa dhacdo walaalayaal oo Shaafici arbacadii la soo dhaaf inta may ku taala waaye markii wiilka dhibaatada loo geysto oo la qaso lagu dilay xamar asaga iyo hooyadiisa Sweden ka tagay xamar ay tageen wiil yar oo qurba jooga oo wadankiisa aaday hadduu rabo xeebo ku dabaaso hadduu rabo meel ku raaxaysto ku dalxiiso Bambaaso oo imaan kara wuxuu tagi karaa Tanzania uu tagi karaa Mareykanku uu tagi karaa meeshuu rabo tagi karaa oo safe u ah wiil yar oo qurba jooga oo wadankiisa xiise iyo hilo oo u qaba dartiisa hooyadiisa raacay xamar tagay asagoo liida jooga nin ciidan sheeganaya waliba nisa ciidanka la dhahay inuu ka tirsan yahay la sheegay ayaa wiilkaas asaga iyo ninka iyo niman kale oo isla socday waa askariya lagu leeyahay ninka oo wiilka afka la galay ciyaalkan qurba joogtaasa u taqaanaan ba qurba joogta ciyaalka say wallahi si fiican u naqaanaa dadka dulmiya ma aha way murmeen markay murmeen uu iska kacay in Cabdi Dollar uu istaagay Shaafici uu iska dhaqaaqay inta loo soo istaagay lagu yiri waryaa see u dhaqaaqi kartaa see anagoo kula hadlaayo saa u dhaqaaqi kartaa waa iska taqaanin xamare waxay iska jecelihiin hadduu xataa uu dablayahay hadduu xataa uu taraafiga jidka taagan xamar oo yahay wuxuu jecel yahay talaya in loogu waco aniga xamar waa tagay dallaf talaya in loogu waco wuxuu sameeyay cunug yaraa inta ka daba tagay wuxuu yiri maxaad ii ignore garaynaysaa waryaa anoo kula hadlaysaa aad u kacdo yiri markaas uu warneeyo isma naqaano ismana fahmayna iga dhamow marka hore xabado iska soo jaray gacantu uga dhuftay ka bacdina waa laga qabtay midida baynaada la dhaho oo ciidamadu ay xirtaan midida baynaada la dhaho oo inta qaatay halkaas uga bilaabo ilaa gumaarka ku geeyay beerku si dhaxmarsiiyay kaliyihiisi ma aragtay dhaawaca gaaray meel kasta caloosha waa aragtay si u tiran yahay Shaafici Cabdi Dollar wiilkii meesha ma aragtay dhibaatada ka dhacday ninka dhibaatadaas geysanay si abay telefonkaaga qoraalka aan ku soo dirsaday kiina si aan u akhriyo ninka dhibaatada geystay magaciisa iyo informationkiisa waan raadinay ruuxaantii waa dadaalnay iyo macal taliyihiisa iyo cid xukunta waan raadinay ninka dhibaatada geystay waxa la yiraahdaa ninka waxa la dhahaa Umarey Awkaate waxa uu joogaa irida aeroportka Marina Gate la dhaho Marina Gate la dhaho joogaa waxa la dhahaa Umarey Awkaate waxa uu joogaa irida aeroportka Marina Gate la dhaho waxa uu ka tirsan yahay nabad sugidda waxa taliye u ah nin la dhaho Cabdiqani Jaale oo haysta iridaha aeroportka oo dhan waa idinku soo celinaa informationadii aan helnay oo raadinay markuu wiilka isbitaalka galu koomaha galay ninkii meesha waa ka cararay askariga ahaa informationadii aan raadinay oo familigu ay raadiyeen aan idin sheegaya si fiican ii dhageysta ninka waxa la dhahaa wiilka qashay waxa la yiraahdaa Umarey Awkaate waxa uu joogaa oo ka shaqeeyaa irida aeroportka Marina Gate qaybta la dhaho waxa uu ka tirsan yahay nabad sugidda ciidamada nabad sugidda waxa taliye u ah Cabdiqani Jaale oo haysta iridaha aeroportka oo dhan okay markii Shaafici markii la qashay oo kooma galay waa arbacadii la soo dhaafay oo isbitaalka hooyadiis ay meeshii ma aragtay cid la ciirsalo ku noqotay oo cunugeeda isbitaalka maamada ay la gashay dad ehela ayaa damceen inay raadiyaan ninkii iyo informationkiisi waa lagu mashquulay waa la raadiyay ninkii waxa la soo ogaaday arbaco wiilka dilay khamiis binu iska shaqaysahay oo aeroportka joogay okay ninba taliya u ah marka xamar saa ogtiin hebelaw Cabdiqani Jaale oo ninka taliyihiisa ahaan raadinay waa lagu mashquulay waa la raadiyay arinta waa la wargeliyay waa loo sheegay waqtiga la geliyay wuxuu dhahay warqado soo samaysta anugu xamar dadka ayagoo inta dadka la qaso oo dadka la dilo
haddana qofkii dhibanaha ahaa ee dacwada qabay in lagu dhaho inta soo mar xagga soo mar warqada soo samayso waxaan ku xirna keen dacwad soo furo adigu faamiliga waa dadaaleen intii tabartooda ahaa wixii marba warqad lagu xiro shalama daraada sheekadu soo gaartay ninkina aan la xiraynin adigu arrinta aniga markii la soo gaarsiiyay qayladaan ma aragtay aad u dheeraan diray xamar waxaan wacay cid allaale cidaan isdhihi karay connection waa laga helayaa inay ma aragtay ninka cabdiqani jaallo la dhahayo inay bal weydiiyaan sababta uu ninka u soo xiri la'yahay sababta cumarey loo soo xiri la'yahay in cabdiqani jaallo la weydiiyo meelo dheer baan u marnay dad aan isdhahaynay waa connection fiican ay haystaan oo waxgalay ka yihiin xamar oo ma aragtay dawladda waxbay ku jiraan waa raadinay adigu dadkii marba mid saan u helaynay arrinta markaan u sheegnay qof kasta uu naxaaysan qalad waaye in mar hore la soo xiray aad cabdiqani jaallo waa raadiyayna hadday ka dhace sidii loogu hayay arrintu waxay ku soo biyashatay yesterday oo shalay ciid noo ahayd Nairobi ma ahay maalintii habeenkii ka horeeyay in hadalkii ugu dambeeyay ee nala siiyo uu noqday wuxuu yiri cabdiqani jaalle ciidaa la soo galay maantana waa soomanahay horta ninku ha ciido qaatilkii shaafici cabdi dollar qasay ha ciido Soomaaliyeey halkaas ay horta xamar waxay maree qaatil wax dilay in lagu yiraahdo ninkii taliyaha ahaa uu ku yiraahdo ha ciido waa soomanahay ciidna waa ku jirnaa ha ciido qaatilkii la rabaa in la ciidsiiyaa nin wax dilay la ciidsiyaa sawirada Facebook ayga ka aragteen shaafici cabdi dollar saa aragteen loo qasay ya waa dhibane waa wiil yar oo wadankiisa soo booqday oo gardarro lagu qasay حتى وحيابا بدنا أفلقادا حتى نكاس ما عرفت ضدك دعوة سلوك ديو كسو يرتي عنق بالود مول هايو عنق معب سنايو عنق سام مو هايو وحالبين شيغا يا صومالي حمر هوساسا كسعطو حمر ساس يكون دنبيسي وحارب عمرك هالكا انان باق وقدرون الكل يوابد بدلان وحبي بدلان دور اسكو ساكت حمر كتيرتي وحبي بدساي نيكا كوفي لرهو او وحي ايربور iyo immigration ku saabsan ninkii haystay ee koofi ahay anigu aan ku ogaa war mudane koofi oo ma lagu bedelo ma sawaad joogtaa ninka koofi la yiraahdo isag madaxda oo ma lagu bedelo nin hadaan lagu bedelin oo joogto arrintan adigay kugu soo biyasbatay way ku qusaysaa lambaroon adiga ayaa ah koofi iyo anybody oo quseeyo airportka iyo immigrationka xukumaha سأفتح شاوي وكله حتى حالي طول هذا أنا هوبن أيام ما عرفت لي شيء جاي لكن وصاحب صناعة بابليك نوك شيء جاي عبد الغني تعالى منك الله إنه عبد فتح شاوي ضدك وشقاليسي أو ما عرفت كياني إنه كتيرو أي حالة حق أهليسينا ما هو بلاكي تكوي ديها عفتح شاوي وهذا عبد الغني تعالى تقانو عبد الغني تعالى هذا تقانو وحول حكومة عمري أو قاتلك التوكتي شافعي عبد الدولار ساعرك تقولي marka haday koofi tahay iyo haday aftax shaawaytay haday any bari oo madax sheeganayo oo ka ah immigrationka iyo airportka qusayso waxa idinka codsanaynaa arrintan inaad meermeerisaan oo ciid nagu mashquulisaan oo leeska ilaawo ma dhacayso cunuga yar wada sharci ka jiru ka yimid Sweden oo ka imaaday ilaahay ha u boogadhayo ilaahay ha caafiyo laakiin waxa idin sheegaa isxaan noomada sameynina waxa kale idin sheegaa qurba joogtay waxa la yiri dhibaatada maanta hadii dhibaatada qof kale walaalkaaga ku dhacday aad aragto ku tasho inay kugu dhici karto adigana maanta waxa xamar lagu qalanayo waa caruurta Soomaaliyeed ee qurba joogta ah marka qof kasta oo hooyo kasta iyo aaba kasta oo cunugaaga markaad xamar geyso waxa shaafici ku dhacay waa sugaysaa hadda sheer garay weyso hadda ka dhiidhi weyso hadda ka hadli weyso waa ifaanteena umaleynaya marka koofi iyo aftax shaaway iyo cid walba ee immigration iyo airportka ay arintoodu ay ma aragtay calashan madax ka ah oo meesha wax ka ah cabdiqani jaalle oo xukuma cumarey oo wiilka saa u qashay wuu diiday inuu soo xiro cumarey muhiimadda cabdiqani jaalle laga rabo waxay ahayd inuu soo xiro cumarey very simple inuu soo xiro laakiin in la yiraahdo ha ciido qaatilkii ha ciido in la dhaho waa ayaan darrada hadda haysata waa inaan Soomaaliya rajo badan aysan ka soo socon waa in ma aragtay maali ilaahay keena maalinta ka dambaysa aad ka niyad jabeyso xamar sometimes waxa isleedahay war ilaahu ma ehelkaaga iyo aabaha iyo walaalaha hadda ganaadaan ilaahu ma xamar oo dhan dhulka ma iga soo علشان ويكون كلفيسا مركا أركت عدالة درنا كتيرتو حمر ضمبا يعني دب لو أركنه إله ربي وما دول كله جويسد ويكون كلفيسا وينكو جارسين إيسا مركا وحنا إذا شيء جاية غير مقدسو أنت عدالة درنا صفير سنة إنسان أو نلشي إنه أي ساعة هرتو هالسجنين إن عاد نراد هالشام إن الراحة يستان إن عاد ما أركت حمر يسبدسو هالسجنين هنا أفر لنا
heerkaasay maraysaa waxaan leeyahay cid allaale cidda arrintan ay qusayso waa inay ka soo hadasho videogaygan waa inaa sheer garaysaan waa inay cid walba ay qusayso koofi oo kale hadda aan magaciisa sheegay shaaway kulli waa inay gaarto waxaan idin qarina malaha arrintu waa taas aha inta isku dayi karna inaan miidiyaha aan ka wareegno oo arrinta aan hoos u raadinana waa u raadinay inta karaankayga ana faamiliga waa la dadaalay cid walba connection ka hayaan wacay ilaa had wax ka soo naas cadaanaya male resultigi wuxuu noqday iyo jawaabtii qaatilkii ha ciido cumarey ha ciido waa saas soo maahan waa inuu ciido soo maahan qof halkaa intuu midi uga bilaabay xabad ku bilaabay markii laga qabtana inta midiyeeyey ya uu koomo ku jiro wiilkii ee faamiligaas oo maaragtay meeshaas ay wax ugu miciina faamiliga ay waayeen oo la iska daba wareejiyo oo warqado lagu xujeeyo oo waxaan loo joogin lagu xujeeyo markii dambena jawaabtoodu noqotay ha ciido soo maahan waaye waa isu joognaa reer muqdisho videogan sheer gareeya waa idin salaama inta samaha jecel kor Allah ka dhigo reer cabdi doolarna waxa idin gaaro waa ka xumahay aadan uga xumahay shaafici waa walaalkayo kale aadan murugta idin la qaybsanaya shalay toole aniga ma ciidin meelaan ciid ku soo qorayna malaha waxaa arkaya dad badan oo baraha bulshada kamid oo qaarkood aan wargeliyay guddi doorasho iyo waxinay soo qorqorayeen ay ka hadlaayeen qaarkood inay ma aragto waxyaabo aan necessary ahayn inay ka hadlaayeen marka maybe anigu dad badan oo ku tastaajiro oo anaga haday arrintan ka hadlaan ila karkarin kara oo meel fiican gaarsiin kara laakiin ciidna way soo gashay dadkina qaarkood waa family waqtigi waa kala duwan yahay Europe oo kala aad u kala duwanahay cid kasta oo public figure oo aan ma aragtay gaarna ula hadlay habeen hore oo aan sugayn arrintan ka soo hadashay cid kasta oo wax gal waxaan rabaa in arrintan ay ka hadlaan ay sii gudbiyaan murugadan aan la wada qaybsano kulliga insha Allah reer cabdi doolar waa idin salaamaya ii sheer gareeya arrintaas waxaan filayaa insha Allah inuu baaqeeno uu gaaro dawladdan isku sheegtuna ay wax ka qabato saasaan rajaynaynaa waa idin salaamaya in badan sheerta igu qabta